daawadayaal mar kale ku soo dhawaada wararka warbixinada iyo wareysyada runta news journal oo aad si joogto ah ugala socotaan Soomaaliya iyo Seattle Washington ee carigaasi Mareykanka. لو دحو كل بنيننا ما دحيا ركبنا كنت رئيس الوزراء وصام مقعاود beelaha ku abtirsada banaandiriga ayaa dibadbax ka dhigay magaalada Muqdisho. dibadbaxayaashan oo ay ka muuqatay caro xoog leh ayaa ka cabanayay boob iyo dhacu ra'iisul wasaaraha wadanka ku hayay kuraastoodii baarlamaanka. dibadbaxayaasha ayaa sidoo kale sheegay inuu ra'iisul wasaaruhu u magacaabay guddi aan banaandir ahayn oo isagu keensaday kuwaasoo kuraastoodii u dhacaya dad aan banaandiri ku abtirsan. dooni mayno ra'iisul wasaaraha ha dhaco, mana doonayno guddiga xaaraanta ah oo isagu magacaabay ayay ku qaylinayeen banaanbaxayaashan banaandirigu. waxaan la yaabanahay cid loo talin lahaa shanta banaadiri waa kuwan halkan joogaan afarta dhinac fiiriya yaa waay dadka la doortay yaa waay qofka kursiga la siiyay intay ka yimideen dadkii degnaa reer banaadiriga waa kuwan yaa waay qofka kursiga la siiyay mudana ra'iisul wasaare waxaan ka raadsanayno waa cadaalad waxaan naga maqan waa xaqayni kursiga annaga iska leh shalay adiga balan ku qaaday kursi walba qofkiisa inuu soo tartamo annaga inaan kursigeenu u soo tartanno diyaaran u nahay qabiil walba asiga kursigiisa u soo tartamayo maxaa jira dad la'aan ma ka dhacday balad qof qabiil walba dad u leeyahay see kursigeena loo siin karaa qabiil kale shanta xamar waa kan odayaashooda waa kan dhalinyaradooda waa kan habeenkooda waa kan inta la iska yimid meesha laga yimid maba naqaan ee kuraasteena la siiye xagay u wataan kuraasta ilaan xamar anaga abi joognay xamar reer xamar abana la yiri reer xamar maxaa loo yiri annaga ma waxaan leenahay meel aan tagno goof kala ma meel nooga yaalo meel aan ka imaano kala baadiyo ma qabnaa war annaga baadiyaheena iyo goofkeena iyo gogasheena banaandiro ku yaala mudana ra'iisul wasaare kuraastan shanta kursi ah dadkoodii waa xaadir way taagan yihiin qof walba kursigiisa u baahan yahay annagana kursigeena waa u baahannahay haddii guddi aad magacaawaysi guddi oo reer banaandir ah oo banaandir xogtooda yaqaana noo magacaaw wax alla wixii noo soo baxana waan qaadanina mudana ra'iisul wasaare ballanaad qaati ballankii aad naga qaati noo oofi haddaad ilaahay ka baqaysid ballankii noo qaati noo oofi haddii kale waad arki doontaa adduunyo iyo aakhiraba dhibkeeda waa ku soo mari doontaa insha allahu tacaala reer banaandir dhibka aad ku haysid ka daa guddigana waxaad ka doonaynaa guddiga cusub ee hadda aad magacaawdi guddi oo xaaraan waaye waxaan codsanaynaa mid xalaal inaad nagu badashid haddaan nahay beelaha banaadiriga dhalinyarada hadda u soo korayso waxaan u baahannahay anaga waa cadaalad ma rabno xoog iyo isqabqabsi waxaan halkan baaq weyn ugu dirayaa mar walba كوما هلاو ما هن أنت لهذا الكروال هالضي وحن هالكان باق وين وجودنا رئيس الوزراء هذا إله تقانيد أذن ظلم الربين وأنا ضد كان حقه وصار عسى شلوا حكتابكم مرتي ومساكين تان حوله هذا وأنا هدرتان وحي شل عدارتكم مرتوينا كنتا نكان يدها العدالة ممكن سعودة توك الجيرين مركيرون تلاقي هالله وحأوبها هنا حقنا واي وحمشي نسكوج معنا دلنا وحق beelaha banaadiriga. Assalaamu calaykum. waad ku mahadsantihiin daawashadiina fadlan ku dhufa like dhammaan baraheena runta news journal ee YouTube, Facebook iyo Instagram hana ilaabin inaad saaxiibadaada la wadaagto una share gareyso wararka xaqiiqada ku dhisan.